السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برنامج كيني ديري كينين oo aad ka dhageysataan Somali Motivation Podcast. waxaan idin socodsiiyaa anigoo Istahel Cabdiraxmaan Caydiid ah. barnaamijkan ayaa ah kii koobaad ee sanadkan 2020 aan ku furi doono. mawduuca maanta aan ka hadlayna ayaa ah kelmad aan inta badan halkan kaga hadalno oo ah guusha. laakiin guushu maxay tahay sideedaba? sidee baa loo gaaraa? in guusha qofba si ayuu yaqaana, qofba meel ayay ka taagan tahay. dadka qaar waxay guusha u arkaan inay noqdaan milyaneer amba bilyaneer oo ay lacag badan helaan, halka kuwa kalena ay deganaanshaha nololeed ay u arkaan guul, halka kuwa kalena inay bilado badan ku guuleystaan oo ay ciyaartooy amba wax u dhigma noqdaan ay u arkaan nolosha guusheeda. qaar kalena inay helaan aasaaska nolosha sida caafimaadka, cunto iyo qoys ay sida u arkaan inay ku gaareen guul adduunyo. sidoo kale in badan ayaa adduunka iyo dhadhalaalkiisaba u arkin wax saas u sii ridan oo alla ka cabsiga oo ay badsadaan u arkaa inay gaadheen nolosha inay gaadheen nolol adduun iyo guul aakhiraba. haddaba guushu waxaan odhan karnaa waa kolba adiga sida aad ka dhigato iyo sidoo kale wixii adiga kaa maqan aad raadiso. taa micnaheedu waxa weeyaan guushaada ha barbar dhigin dadka kale. haddii aad qof sidaa u eegto tiraahdo qofkaasi wuu guuleystay, waxaas ayuu sameeyey, halka ayuu gaadhay, waxaad qiyaasaysaa qofka kale guusha uu gaadhay. laakiin haddii aad dib isku eegto waxaa dhici karta adiga guushu meesha ay kaa taagneyd inaad gaadhay, haba yaraato dadka kalena micnayay u sameyn, laakiin adiga wixii habi kaa dhigayay oo deganaanshiyaha nolosha ku siinayay oo aad u arkaysay guul inaad gaadhay ayaa dhici karta. dadka oo dhanaanay ku arkin qof guuleystay, laakiin xukunka ayaa iska leh, adiga ayaa iska leh. ma rabti meeshaad gaadhay, waxaad doonaysaa ma haysataa, ma isku aragtaa qof guuleystay. hase yeeshee maanta halkan waxaan ku tilmaami doonaa 9 qodob oo kaa caawinaya wadada aad u mari lahayd guusha nooca ay doontaba ha ahaatee adiga maskaxdaada ku jirta. haddii aad doonayso inaad meel gaadho waa isku mid, meel gaaban iyo meel dheer labaduba socdaal bay u baahan yihiin. saa darteed 9 qodob waxay kaa caawin doonaan guusha adigu aad doonayso nooca ay tahayba ha noqoto, macnaasay doonto ha noqoto, laakiin 9 qodob waa jaran kaa caawinaysa inaad guusha gaadho insha Allah. qodobka koobaad ayaa waxaan kusoo qaadan lahaa in qof kasta oo doonaya inuu guuleysto waa inuu leeyahay hadaf amba meel uu rabo inuu gaadho. waa inaad qortaa oo aad qorshaysaa hadafkaaga. haddii kale meel aad u socoto adigu ma garanaysid oo kuma cadaa sidee ayaad u gaadhaysaa. target aanad garanahayn jihadiisa macnaha adagta inaad gaadho. saa darteed qor oo qayax goolkaaga, in halkeed u maraysaa, sideed u gaari lahayd, maxaad u baahantay inaad samayso, maxaad u baahantay inaad la timaado, maxaa kaa maqan, maxaad baran lahayd, maxaad cid weydiisan lahayd, sideed yeeli lahayd. arrinkaas oo dhan marka aad qayaxday ee aad qorto waxa ku in afka ka tiraahdo maskaxda ka fikirto iyo inaad qorto oo aad qorto step by step way kala duwan tahay. markaad ka fikirto waxa laga yaabaa wixii isku duuduuban inaad ka fikirto tiraasaysan doonaya caynka inaad sameey, laakiin marka aad qorto ee aad kala qaadqaadad qeexataa waxaasan rabaa, kaas ay gaga xidhan, kaasan doonaya inaan gaaro, kaa ma heli karo, maxaan ku bedeli lahaa, kan sideen yeela, kaa ma ka samraaba ma gaari karo, kan kala sideen ugu bedelaa. macnaha waxa aanad gaari karin hadafka laftigiisa maaha, laakiin waa jaranjaradii aad u marsan jaranjarada anigu ma kori karo tanaan maraya. qor oo qeex, taasay kuu fudaydinaysa inaad goolkaa gaadho. qodobka labaad ayaa waxaan odhan lahaa waa inaad lahaataa discipline. discipline inta badan halkan in badan baan kaga hadalnaa runtii waay waa lagama maarmaan haddaad doonayso inaad meel gaadho. laakiin discipline-ku waa maxay? haddii marka la sharaxno inagoo hore u sharaxno waxaan odhan karnaa waa habka barashada raacidda qorshaha ama sharciga adiga kuu degsan. sidii haddii aad qorshaysato inaad shaqo qabato maalin kasta saacad go-an inaad qabato, haddii aad daalan tahay ama wax kale kuula soo darsaan, discipline-ku waa ka kaa caawinaya marka hawsha aad qabanayso aanad niyad amba dhiiranaan u haynin si ay naftaadu baratay inaad qabato. waa discipline aad samaysatay kaa ay raacaysaa. haddii kale
daawato amba social media gasho amba iska sheekayso iyada oo shaqo ku taalo haddii aan cid ku ilaalinaysa amba qof boss ku ah amba qof madax ku ah aanu jirin shaqadaada ilaalinaya waxa laga yaabaa inaanad qaban laakiin haddii ay discipline aad leedahay oo adiga ay kaa go-antay waxa inaad qabato oo ay tahayba tusaale ahaan shaqaanad cidna u qabinaad gurigaaga ku qabanaysid amba tabi qof gurigiisa ka shaqeeya amba qof freelancer ah oo asagu shaqooyinku doonaya xilligu doonaya sidoo doonaya u qaata shaqada ma qaban kartaa haddaan discipline lahayn maya ma qaban kartid haddaad tiraahdo 5 subaxnimo ayaan kacaya quraan baan akhrinayaa waqtiga amba buug baan akhrinayaa maalin kasta haddaad xalito la xili dambe seexato qorshahaageed raaci weydo waa inaad 5 kacdaad akhridaa kaawiyaan discipline-ku ku fudaydinaya hawshii aad go'aansatay xilligaad go'aansatay qorshihii aad dhigatay sidii aad doonaysid inaad u gaadho inaad raacdo wax kastoo kaa hor yimaada laakiin qofka duuna maanta wadaan oo ka seexanaya amba wixii sameyn waayo waxa ku adag amba ka maqan discipline-ka naftiisa ayaa ka maqan haddaan intaa qodobka kaga baxno qodobka saddexaad ayaa waxa uu noqon karaa waa inaad noqoto qof naftiisa waxbara oo sidoo shalay haasi ka fiican raba inuu noqdo berito leh oo hore u mariyo maskaxdiisa waxbarashadan ma aha mid aad iskuul u tagayso ama waxbarashadii caadiga ah ee waa inaad noqoto mid nolosha iyo qaabka nololeed ee xirfadaysan barta si aad guul ugu noolaato amba aad farxad ugu noolaato amba deganaanshiyabaad ugu noolaato tusaale ahaan dhageyso muxaadarooyin badan oo kuwa diiniya iyo kuwa diini ahayn oo cilmaaniya ka doonan ha ahaadaan buugaagta badan inaad akhridid maxaan ku raahdaa inaad macnaha wax ka barato waxyaabaha nolosha ay kugu xeeran inaad aqoon barato iskuul aad u gasho jaamacad ka soo baxda waxaad baratay wax specific oo gaar ah shay gaar ah ayaad baratay cilmi gaar ah ayaad baratay oo meel gaar ah qoseeya laakiin ma baran xirfadii nololeed sidaad ugu noolaato lacag kasta haysato ama shaqo kasta wanaagsan haysatid ma aha guul fara badan oo wanaagsan oo ku noolaan karta haddii aanad deganaanshiya lahayn aan nolol degan ku noolayn ama nolol farxad ku noolayn qofku inuu maskaxdiisa horumariyo oo barto nolosha ku hareeraysan oo cilmiga iyo aqoonta raadiyo oo xirfadda nolosha raadiyo oo buugaag badan akhriyo waxyaabo badan dhageysto akhriska faraha badan dhageysiga faraha badan waxay ku siinayaan intaas oo kun oo qof oo aanad la kulanteen amba waqtiyo hore dhintay amba aqoon-yahana inaad aqoontoodii aad kasbato adigoo halkaas ka fadhiya aqoon kasta oo maskaxdaada kusoo biirtaana maskaxdu waa muruq waa masal way sii ballaaranaysaa way sii weynaanaysaa way sii adkaanaysaa adiguna qof isbedelo oo macnaha dadka la jaan qaadi kara ayaad noqonaysaa markaa is update garaysad computerkaaga waa update garayso adigoon cilmi waaweyn raadsanahayn laakiin xirfadda aad markaa doonaysa ama meesha aad ka shaqeynaysa amba sida dadka ula dhaqmaysa ama dadka aad la kulanto tusaale haddaad macalin tahay inaad macalinimo jaamacadda kaga soo baxday waxaa ka muhiimsan inaad maalinba researchka caruurta laga sameeyay siday u fikiraan iyo waxyaabaha ka hor yimaada aad akhrido dhageysato aqoontaadii bay kaabaysaa way ku caawinaysaa si practical fasalka gudihiisa markaad ku jirto xirfadaha kalena waa lamid noloshu sida caafimaadka ganacsiga haddaad ganacsato ahaad oo tusaale ahaan ku ganacsanaysay si caadiya oo kartoon yar lacagtaada ku guranaysay maanta lacagtii lagu bixinayo maxaan ku rahdaa qaab computerized ah inaad barato oo la socoto oo ogaato oo aanad isbedelka ka baqanin weeyaan qodobka afraad ayaa waxaan oran karnaa waa qodob kaloo aada u muhiim ah in qofku uu noqdo mid aan caajisin waxa caajisa qofka aan garanahayn waxa uu qabanayo amba hawsha u qorsheysan ay yar tahay haddii hawsha ku qorsheysan yar tahay waxaad noqonaysaa qof caajisa haddii kale waxaa tahay qof markuu tallaabo qaado tallaabadii kale u taalay og wuxuu qaban lahaa uu qorsheysan maalintuu qorsheysantahay wiiguu qorsheysan bishuu kuu qorsheysan tahay goorma ayaad caajisaysaa ma caajisaysid keliyata waxaad ku fikiraysaa goorma ayaan jiibsadaa nasta deedna marka soo kacda waxbaa kuu qoran saa darteed qodobkan waxaa muhiima inuu qofku tusaale ahaan sanadku markuu bilaabo inaad soo iibsato buug amba waxyaaba wax lagu qorsheeyo amba moobilkaagaba moobil kasta wuxuu wataa meel wax lagu qorsheeyo oo lagu qoro taariikhda iyo saacadda iyo waqtiga iyo maalinta aad geliso haddaad qof saa u qorsheysan ma caajisaysid waana lagaba maarmaan inaad noqoto mid wax akhriya oo wax akhriskiisu badan yahay sidoo kale waxaa la sheegay celcelis ahaan dadka CEO-ska ah amba madaxda ee shirkadaha waaweyn amba maamulka sare ee wadamada
inay celcelis ahaan akhriyaan sanadkii 72 buug. yaa 72 buug oo macallin ku dirin cidna ku khasbahayn waan akhridaa. taamid wax weyn qof 72 buug sanadkii hore akhriyay wuxuu haystaa 72 khibradood oo cid kale maskaxdooda uu ka kasbaday oo aanad adigu haysanin. yaa sadarteed ha noqon mid ku caajisa markuu kaliya yahay ee noqo qof wax akhriya amba qof wax qorsheeya markaad kaliya tahay amba naftaada la faqadad cid la fadhido naftaada xisaabi maxaad qabatay maxaad dareemaysaa weekend maxaa kugu dhacay sidii xaaladaadu ahayd maxaad intaas oo dhan waxa qorsheysatay u raaci weeyay sideed yeesha maxaad u baahan tahay qofku naftiisa inuu wareysto waxay la qiimo tahay amba u dhigtaa inaad dadka jeceshaan walaalada amba hooyada amba aabaha ama saaxiibada la shaqeeya sideed tiin xaaladiina ka warama marmarka qaarna istiraahada adigu xaaladaada ka waran weeyaan marka xilligeeda caajis lahayd noqo qof wax ku buuxiya. qodobka shanaad ayaa ah tusaale ahaan noqo mid qaata mas'uuliyadda khaladkiisa amba guuldaradiisa. ha noqon mid ku eedeeya dadka kale ama cid kale amba waxa ka xumaada waxa uu gaari waayo ama waxa ka qaloocda. tusaale ahaan haddaad imtixaanka dhacdaha oran macalinkaas waxba noomu dhigi jirin caynkan amba imtixaankeygii cadaalad darro ayaa ku dhacda amba wuu riday amba hebel baa lacag bixiyay amba badhaa yacni haddaad qof ku khaldanto amba qofka maamulka shaqadaada hay ku khaldanto ama qofka la shaqeynaysa ku khaldanto ama qofka saaxiibka ay ku khaldanto ama qofka la nooshay ku khaldanto qofka had iyo jeer aan khaladkiisa qaadani ma aha qof meel gaadha waayo dadka bilaadanka xiriir lama samaysan karo lamana noolaan karo. haddii aad bilaadanka xiriir la samaysan karin xiriir dhaqaale iyo mid ganacsi iyo mid horumartoona ma samaysan kartid. sidaa darteed waa inaad noqoto qof soo jeeda oo marka ay wax ka xumaadaan amba ay guuldarro ku dhacdo amba ay wax ka qaloocdaan yiraahda aniga ayaa khaladka lahaa waxaa dhacay sababtaasa keentay adoo qadarka Ilaahay aaminsan haddana waa ina sababtaada ogaataa. dan aad tiraahdo waan qaatay khaladkayga ka raali noqo haddii adigu wax aad doonaysa aad gaari weydaan baad ku guuldarasatana aad tiraahdo guuldarada waxa keenay kaas oo ina saxa marka dambe. haddii aad qofka sida noocan oo fikra waxaad la maskax tahay amba la fikir tahay dadka guulaha gaadhay ee adduunka laga sheekeeyo yaa waxaad noqonaysaa qof dadka la noolaan karo oo dadku qiimeeyaan isla markaana qadariyaan. waxaad noqonaysaa qof wax kasta oo soo mara amba dhibaato kasta oo soo marta amba guuldaro kasta oo soo marta ka barta cashar oo marka dambe isticmaala. san hore u sheegnay dadka nolosha meesha ay rabaan ka gaadha ma aha kuwo victims ah amba dhibanayaala. mar walba wax kasta oo ku dhaca cashar bay ka bartaan way qirtaan mas'uuliyadooda hore ayaan uga socda. inta badan qofku markuu guuldaro maqlo uu baqdaa laakiin waxaad ogaataa haddii aanad guuldaraysan guul ma gaadhaysid. aad 100 jeer guuldaraysato ayaa laga yaabaa hal mar inaad guulaysato ama mar ku xiga inaad guulaysato laakiin guuldaro waa jaranjaradii aad dabaqa labaad ku gaadhaysay adigoo dabaqa koobaad jooga ilaa jaranjarada kasoo bilowdo dabaqa koobaad dabaqa labaad ma gaadhaysid. sadarteed inuu qofku guuldaraysta waa muhiim marar badan si uu guulaysto. qodobka 7 haddii aad rabto inaad noqoto qof ku guulaysto noloshiisa isla markaana meesha uu rabo gaadha ha noqon mid isdhiiba ama marka uu tiraantiroodo macnaha isdhiiba oo yiraahdo way adag tahay si kala hadii loo dhigaa isdhiibin wax kasta dhaca. haddaad garanayso waxaad doonayso meesha aad u socoto goolka aad leedahay hadafka aad leedahay uu ku cadiyay wadadii loo marayay aad arkayso ha isdhiibin u soco haddaad socon kar carar haddaad soco aad carar kar weydo tusaalahaan u soco haddaad socon kar weydo u gurub adig ku jirta laakiin ha isdhiibin mar walba isku day inaad meesha gaadho xilligaad gaadhayso iyo saad ku gaaraysa micno badan ma samaynayso. haddii dadka qaar guusha markiiba gaadhaan yaa waxa laga yaabaa adigana 10 sano 20 sano ay kugu qaato meesha aad doonayso inay gaadho. muhiimaddu waxa weeyaan weli wadadii ma haysaa mise meel baad fadhiisato oo isdhiibtay. haddaad wadadii hayso inaad 20 maalmood ku gaadhay 20 sano ku gaadho micno badan ma samaynayso. maalinta meesha aad doonayso gaadho ayaad guulaysanaysaa. qodobka 8 ayaa wuxuu la mid yahay qodoban hore u soo sheegno aha inuu qofku noqdo mid mar walba waqtigiisa qorsheeya.
in kana waa isla halkii uu macnaa waqtigaagu waa inuu noqdo mid qorsheysan ha noqon mid qorshe laawo ah amba idhaahda anigu shaqo badan ma haysto waxba ma barto amba wax aan qorsheeyaba ma hayo maxaan qorsheeyaa waan soo toosaa waan seexdaa waxaa jira waxyaabo badan oo lacagna ku xidhnayn adduunna ku xidhnayn oo aad qorsheyn kartid tusaale ahaan haddii waxaad maanta qorsheysaanay faraha ku jirin oo hurdo iyo cunto iyo wixii ilaahay ku siiyaad ku nooshahay waxaad qorsheyn kartaa inaad saacad heblaayo meel fadhiisato inaad saacad heblaayo aad soo dhageysato tusaale ahaan war amba wax adigoo asleeda wuu ku anfacayaa xataa markaa haddii aanu anfac ku lahayn wuxuu noloshaada siinaya qorshe iyo qaab aad u noolaato wuxuu ku barayaa inaad haddaad taa raacdo kolba fikir ayaa kugu dhalanaya sidii aad halka hore uga socon lahayd laakiin noloshaad ku noosho haddii aad bedeli weydo oo aanad qorshe amba wax aad ku bedeli weydaana sameynin ilaahay wuu bedeli karaa qofka noloshiisa marka uu doono iyo siduu uu doono laakiin macnaha sabab wanaagsan oo isbedel ku dhacaa ma jirto saa darteed inaad waqtigaaga qorsheysid xataa haddii aanad adduunyo maanta amba waxaad qorsheysa gacanta ku hayn inaad isku daydo inaad xili gaara kacdo xili gaara aad toosto inaad xili gaara wax cunto inaad soo yara socsocoto inaad wax dhegeysato inaad meel fadhiisato ood wax qorto haddaan buugi qalin bahaysan dhulkaba ku qori ciidaba ku qorada doonto wax haddii aanad wax qori karin waxna akhri karin aad tiraahdo sideed u barataa wax akhriskiiyo wax qorida iyadan lacagna kaaga baxahayn maxaa sameysaa ma dadkaad weydiin ma qof jaarkaaga oo dhan maskuul baad geli xataa adag intaasoo dhan awood weyday haato waxaad jecesho niyadda iyo qalbiga ku hayso oo maalintii kuu suurta gasho insha allah aad gaadho markaa waxaa noqoni qof qorshe laawo ah mar walba inaad hesho waxaad jeceshahay shaqo amba xirfad taas baro oo ku dadaal si aad guul u gaadho waan ogahay inay adag tahay qofku wuxuu jecel yahay inuu helo oo qof kasta qabanayo wuxuu ku badbaado oo ku survive garoobo oo noloshiisa ku masruufo oo ku noolaado xataa haddii aanu jeclayn haddaad xaalada ku sugan tahay dadka inta badan bataas ay ku sugan yihiin laakiin insha Allah rajadaada iyo qaabkaad jeceshahay in xaaladaada noloshaada noqoto ee qalbigaaga ku jirta ee aad qorsheynaysaa sida ha ahaato inta badan waxa dhacdo qofku waxa uu qorsheynayo uu ka fikirayo uu niyadda ku hayo in uu ficilkiisuna raaco ilaahayna waxa niyadiisa ku jira uu rumeeyo marka noqo qof fikirkiisa iyo riyadiisa iyo qorshihiisa aamina ilaahayna tala saarta haddii aad hesho tusaale ahaan shaqaad jecesho xirfadaad jeceshahay waxay ku siinaysaa nolol deganaanshiya marka laga yimaado dhanka lacagta iyo masruufka waxay ku siinaysaa nolol deganaanshiya marka aad tagto iyo aad shaqeynayso aad muddo saacado badan maalintii aad ku qaadato halka ma noqonayso qof stress amba depression shaqadiisa ka qaado oo gurigii asagoo dhibaataysan oo xanaaqsan oo daalan imanaya laakiin haddii lacagta doonto ka qaado aad joogto shaqo aanad jeclayn aanad ka helin ku dhibaysa waxaad noqonaysaa qof 24 saac karaahiye ku nool marka waxa wanaagsan adoonso meesha adoonso inaad gaadhid marka koobaad inaad hesho waxaad jeceshahay si aad deganaashiyo nololeedu gaadhid oo macnaha noloshaada uu deganaashiyo gaadho maskaxdaaduna ay ka fikirto qaabkii talaabo kale oo guul ah u qaadi lahayd waan wada ognahay haddii ay maskaxdaada culays fara badan saaran yihiin meesha aad rabto ma gaadhi kartid shaqaduna waa arrimaha ugu waaweyn bay ka mid tahay qofka maskaxdiisa saameynta fara badan ku yeesha halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa 9 qodob ee maanta aan ugu talagalnay in sidee qofku guushiisa u gaari karaa iyo guusha maxay tahay aan kaga hadlaynay waxaan rajaynayaa sanadkan cusub in ilaahay idin fudaydiyo wax kasta aad jeceshihiin inaad gaadhaan inaad guulaysataan mid if iyo aakhira labadaba aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa qaabka wanaagsan